Ugu dambeyn sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxay bariiskeena iyo digaageena maanta. Haddaad sidaan u samaysatid hubaalo waa ka heli doontaa, inaba caadi ma ahan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta waa idin salaam meel walba aad dunida ka joogtaa. Magacayga waa Xafsa. Haddii taa markii kugu horeysa janaalkay soo booqanaysa fadlan subscribe ii saar. Hore haddaa iila joogto waa ku mahadsan tahay. sida ujeedaa meeshan waxaa ku haystaa alaabta u isticmaalay digaagayga. meesha hadda waxaa ku shubayaa kis saliid ah. weelka kale waxaa iigu jiro xawaajiyaasha nuuca jecesha ayaa ku darsanaysaa. waxaa kaloo ku daraa liin dhanaan, liin dhanaan ayaa soo miiray iyo qaado iyo bar oo yoogad ah. waa isdhexgelinaa. markaas dhexgeliya kadibna digaaga ayaa marmari doonaa. kadibna bac ayaa kor kaga xiri doonaa. waxaa sugi doonaa 20 daqiiqo. 20 daqiiqo kadibna waxaan geli doonaa foornada. insha Allah siduu kusoo baxo waa arki doonaa, inaba caadi ma aha. sida haddaa u samaysatid hubaal waa ka heli doontaa. labaatan daqiiqo kadib hadda waxaa lasoo gaaray waqtiga aan geli lahay foornada. weelkan ayaa foornada la gelinaya. waxaa soo saartay aluminium siduu igaga dhagin. kadibna meesha ayaa saara. kadibna baradho iyo basal asaara. kadibna aluminium kor ka saara. kadibna foornada waxay ku jiri doontaa qadar 35 daqiiqo ah. 175 degree ayaan ku dubi doonaa. hadda digaageena intuu noogu jiro foornada waxaa dalacan doonaa bariiskeeni. saliid ayaa dabka soo saartay. basal oo soo jarjarta ayaa ku daraa. bashasha markay wax yar shiilanto xawaajiyadii iyo maraq digaagii ayaa ku dari doonaa. kadibna bariiska ayaa ku dari doonaa. kadibna biyo oo soo kuleysta kor kaga dari doonaa. insha Allah ugu dambeyn sida kusoo baxda waa isla arki doonaa. haddaa sidan u samaysatid aad iyo aad ayuu iisi u yahay, uu macaan badan yahay. hubaal waa ka heli doontaa. bariiskeeni intuu noo karsamaayo birtaaw ayaa dabka soo saartay. saliid ayaa ku shubtay. meeshan waxaa ku dubi doonaa karooto aan soo jarjaray iyo sabiib. sharaxaad ahaan ayaa bariisku u isticmaali doonaa. qurux ayuu kaaga dhigayaa. decoration aan unba u isticmaali rabaa.
hadda bariiskeeni huuris yar ayaa u dhiman, kalar ayaa kor kaga shubaa, kadibna waxaa ku dari doonaa karootadii iyo sabiibtii aan hore usoo duway, kadibna aluminium ayaa kor ka saari doonaa, waa huuri doonaa qadar 10 daqiiqo ah. 10 daqiiqo kadib siduu kusoo baxo waa isla arki doonaa insha Allah. 10 daqiiqo kadib bariiskeena hadda waa diyaar. Digaageennina waa kasoo saarnay foornada, waa diyaar. 35 daqiiqo kadib sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxay. Hadda waa soo guri doonaa, saxanka ayaa soo saari doonaa. Ugu dambeyn saxankan ayaa kusoo guri, sidaan quruxda badan ayuu bariiskeena kusoo baxay. Inaba caadi ma ahan, aad iyo aad ayuu u fududahay, waqti badan ma kaa qaadanayo, dhadhankiisa inaba caadi ma aha. Sida caadada ahna qaybta dhadhamiska ana idiin qaabilsan. haddaa sida u samaysato hubaalo waa ka heli doontaa. Fadlan hadduu video ku cajabay like ii saar, haddii ra'yi qabti comment ku soo qor, hadduu channelka subscribe ku ahaan saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.